السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا ونكسن دلهانتين بوامر كلا يحمنتيني ورقتي ذوحي قرآن أو تطبعد كهالمركة لها تانشا شدة التلفزيون كان يشمع التيتي برنامج كهلا وحيدين دادي ساني قواعد jaridada Daily Mail ee ka soo baxda cariga Ingiriiska ayaa wax ka qortay dawladda military oo dhinaca badda ay markii ugu horeysay wada sameeyeen dawladaha Ruushka iyo Shiinaha. Maraakiibta dagaalka Shiinaha iyo Ruushka ayaa markii ugu horeysay si wada jir ah u ilaalinaya galbeedka badweynta Pacifiga xilli ay marayeen jasiiradaha Japan. Maraakiibta dagaalka ee Moscow iyo Beijing ayaa ronda wada jir ah bid ku sameeyeen galbeedka badweynta Pacifiga toddobaadkan dhamaadkiisii. iskaashiga labada dal ayaa imaanaya xilli xiriirka kala dhaxeeya dalalka reer galbeedka u maraya halkii ugu hooseysay tan iyo laga soo bilaabo dagaalkii qabooba. dhaqdhaqaaqyadu waxay ku jireen marinka Sugari iyo kala soocidda jasiiradaha waaweyn ee Japan iyo waqooyiga Hokkaido. xukuumadaha Moscow iyo Beijing oo dhalatus iskaashi ah oo dhinaca badda ka sameeyay badweynta Japan horaantii bishii Oktoobar ayaa lahaan jiray xiriir militari iyo mid diblomaasiyadeed sanadihii u dambeeyay xilli uu xumaaday xiriirkooda dhinaca reer galbeedka. dhaqdhaqaaqa ciidamada badda ayaa waxaa si weyn ugu haysay Japan oo sheegtay in horaantii toddobaadkan ay koox markab oo ka kala yimi Shiinaha iyo Ruushka ay ka sharaacdeen marinbiyoodka Sugari ee kala qaybiya jasiiradda ugu weyn ee Japan ee Honshu iyo waqooyiga Hokkaido. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa xaqiijisay in labada quwadood ee adduunka ay ka wada shaqeeyeen marinbiyoodkaas kaasoo loo arkay inuu yahay mid caalami ah. iskaashiga u dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka ayaa yimi kadib markii Vladimir Putin uu adduunka tusay awoodda militari ee Ruushka isbuucii la soo dhaafay isagoo ciyaar adag oo militari ku soo bandhigay badda Midoobay ee u dhow Ukraine. intaas waxaan ku soo afmeerayay xubinteena wargeysyada waxaan la socodsiinayay anigoo Aid Maamul tan iyo intaan dib u kulmi doonaa amaano la kulanti dambe wax xiiso leh.